بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد درسيغاني ودرسيغي اللحاد وكم إذا درست أن وهل ليني أحكام تكساب بشهر رمضان درسيغان درسيغي كهري وحان وقصوا هذا لني خصائصتا بشهر رمضان وحيابها بشهر رمضان أي كلا قوني دا تاهي بلاه كلا درسيغان المانتنا وحو كساب سيهي أنواع ذا الصومك أنواع ذا صومك وكلبحو صومك وحو قيب سما سدح قيبود قيبت كوباد وصوم واجب قيبت اللبادنا وصون سنة قيبت سدحادنا وصون منهي ولا ريابي صومك واجب كامرك وحوية وصومك بشهر رمضان أما هالنقض أداء أما هالنقض قضاها النقض أداء وحلقة وضع صومك وقت يسي أتشوغو بشهر رمضان بالوجرة ولا سومية وقت يسي بالتشوغا قضاهنا وقفك هدي وحكم ذا صومك رمضان أي كتاقين إنو سوى قضيه وقت كلا ولي ماذا لابد يوم مركو حيسوغ لها صومك واجبك صومك واجبك وحكم ذا صومك نذرك قفكو إنو ندره وإلهي ندره إنو صومه نذر كاسي هالنقضو مدوح كحرا أما نذر مطلقا أو حكو حرنين قفكو مثلا حليه هاي وحا إلهي ندري إنا سدح بري صومه أساقو محبكو حرين وحو نقونها يا واجب ونقونها يا وحو يري وحا إلهي ندري inaan saddex bari soomo haddii uu ii raysto qofka iga jiran wuxuu noqonaa nadar wax ku xiray isagana haddii qofkii ka jirana uu raysto waxa laga rabaa soomka inuu la yimaado soomka sidaas oo kale isaguna wuxuu noqonayaa soomka waajibka ayuu kamid yahay soomka waajibka waxa kamid ah soomka kafaaradu siyaabo kala duwan bay u waajibtaa waxa kamid ah kafaaratul yamiin وحكمل كفارة القتل قف دو قف دلو وحكمل كفارة الظهار وحكمل كفارة الجماع في نهار رمضان أنواع بضم بكتم هذا مثلا كفارة اليمين قف هدو تدارته ودارتي فلين وايو ودارتي او خلافه وحكو واجبيس كفارة ذا سمركا وحيلا ترتيب بيلاذا ذاتك قاركود markuu rabo inuu dhaarti ka kafaara guto waa iska sooma marka soomka waxba ka horeeya waxa way qofku kafaaratul yamiin ama dhaar haduu inta galay dhaarti uu fulin waayo waxa laga rabaa inuu kafaara guto kafaaradaasi marka waxay ku bilaabanaysaa marka hore saddex shay buu ikhtiyaar u leeyahay in uu qof adoon xoreeyo taasuna hadda maanta ma jirto oo caalamka kama jirto shayga labaad waa in uu 10 qof oo masaakiina uu qoodiyo ama qada siiyo ama casho siiyo shayga saddexaad 10 qof oo masaakiina inuu marashiyeeyo bimacnaa inuu dhar u gado labis ay ku labisan karaan oo cawradooda u asturahayo oo ay ku labisan karaan inuu u gado saddexdaas shay oo ah inuu 10 miskiin qoodiyo ama uu dhar u gado ama qof adoona uu xoreeyo saddexdaas markuu awoodi waayo ayuu wuxuu sameeynayaa wuxuu u gudbayaa markaas soomka saddex bari inuu soomo saddexdaas bari marka waxay noqonaysaa waxay kamid tahay soomka waajibka qofkii saddex shay aan soo sheegnay awoodi waaya waxa laga rabaa saddex bari inuu soomo oo uu sida uga kafaara guto dhaarti u khilaafay qofku marka hadii uu wax ka dhaarto wax wanaaga oo khayr ah haduu ka dhaarto mesela wuxuu yiri wallahi inaana qof hebel la hadlayn qof walaalkiisa ama saaxiibkiisa ama qaraabadiisa ama wuxuu yiri wallahi inaana hebel waxba tarayn oo waxba siinayn qofka sidaas oo kale shay wanaaga ka dhaarta waxa wanaagsan in uu kafaara guto qofkiina uu la hadlo wanaagina uu sameeyo sidaas ayaa nabiga kaleey salaatu wasalaam uu amray
kafaarada waxyaabaha ka wajibta waxaa ka mid ah dilka qofku hadduu naf gooyo waxaa ku waajiba kafaara ayaa ku waajibaysa dabcan diyadii ama qisaastii markii laga soo tago waxaa laga rabaa qofkii kafaara ayaa ku waajibaysa kafaaradaas waxa weeye inuu qof addoon xoreeyo haddii uu waayana uu soomo 2 bilood oo xariira uu soomo oo aan maalina u dhaxayn ilaa cudurdaar inuu ku yimaado maahane sidii qofkii haddii uu مثلا jiro oo awoodi waayo ama ay ku soo gasho ciid ay ku maalin ciid ay ku soo gasho ama qofkii dumar bay ahayd qofka soomaya waxa ku timid ay caadadii sharciga ahayd ayaa ku timid sidaas inuu uga kala go'an maahane qofku waa inuu 2 bilood oo xariira inuu soomaa ku waajibaysa sidoo kale waxyaabaha kafaaradu ka waajibta waxa kamid ah dhihaarka waxa la yiraahdo dhihaarka waxa weeye ninku inuu xaaskiisii uu yiraahdo waxaad igala mid tahay hooyaday ama walaashay bay igala mid tahay ama gabadha aan dhalay igala mid tahay sidaas oo haduu yiraahdo asaguna waxa ku waajibaysa kafaaro oo inuu xoreeyo qof ma garanaysa adoona inuu xoreeyo haduu awoodi waayo inuu markaas uu 2 bilood oo xariira uu soomo waxyaabaha kafaarada ka waajibta waxa kamid ah jimaac ama inuu ahalkiisa u tago oo la mucaasharoodo maalin ramadaan oo la sooman yahay isaguna sidaas oo kale waxa laga rabaa inuu adoon xoreeyo haduu awoodi waayo inuu markaas 2 bilood oo xariira inuu soomo ayaa laga rabaa marka anwaacdaas aan soo sheegno dhan waxay kamid yihiin soomka waajibka ayay kamid yihiin nooca labaad oo soomku waxa weeye soonka sunnada ah soonka sunnada waa soonka sharcigu uu dadka ku booriyay in la soomo waxa kamid ah maalinta Carafa oo la soomo maalinta 9aad bisha xajka bisha dilxijja maalinta xujaydu ee Carafa taagan in la soomo nabiga kaleey salaatu wassalaam wuxuu sheegay maalinta soomkeeda in lagu dhaafo sanad tagay iyo sanad soo socda laakiin qofka asagu xaajiga ah oo Carafa taagan maalintaas asagu soomi maayo looma sunneeyo waxa kamid ah soomka sunnada ah maalinta Ashura iyo Taasuuca in la soomo Ashura waxa weeye maalinta 10aad oo bisha Muharram bisha sanadka muslimka ku bilowdo maalinteeda 10aad iyo maalinteeda 9aad labadaas maalmood in la wada soomo nabiguna kaleey salaatu wassalaam wuxuu sheegay in lagu dhaafo sanadkii la soo dhaafay dunuubteeda in lagu dhaafo ayuu sheegay ajarkiisa maalintaas waxa kamid ah soomka sunnada ah 6 bari oo bisha Shawaal kamid ah Ramadaan ka dambaysa in la soomo qofka marka Ramadaan la soomay 6 bari oo Shawaalna ku xijiyay oo soomay wuxuu la mid yahay qof sanadka kaamila soomay ayuu la mid yahay sanadka dhan qof soomay ayuu la mid yahay khasabna ma ahan inay noqoto 6da ugu horeysa inay noqoto khasab ma ahan inay isku xigxigaana khasab ma ahan waxa kamid ah soomka sunnada ah inuu qofku maalinna soomo maalinna uu afuro nabiga kaleey salaatu wassalaam wuxuu yiri afdalu siyaami siyaamu daawud wa soomkii uu soomi jiray nabiyullaahi daawud wa soomka ugu fadliga badan buu kamid yahay kaana yasuumu yawman wa yuftiru yawman maalinna uu soomi jiray maalinna uu afuri jiray soomka sunnada waxa kamid ah in la soomo 3 maalmood bil kasta laga soomo waxaana wanaagsan inay lagu aadiyo ayaamul biid maalmaha cadcad waa 13 14 15 bisha bilaha muslimiinta kamida ayaduna sidoo kale waxay u dhigantaa qof sanad soomay oo kale sababtoo bil kasta marka 3 bari ka soomtid waxa uu adoo bisha soomay oo kale maalin kastaba waxa lagu xisaabinayaa 10 maalmood adoo bishii 3 bari soomay la mid ah sidaas marka hadaa ku wadid waa adoo sanadka soomay oo kale la mid ah waxa kamid ah soomka sunnada ah isniinta iyo khamiista la soomo usbuuc kasta laga soomo sababtoo labadaas maalmood waa labada maalmood oo acmaasha la bandhigo ilaahay loo bandhigo marka qofku asagoo sooman in amalkiisa la bandhigo si loo bandhigo asagoo sooman inuu marka soomo labadaas maalmood oo isniinta iyo khamiista aad bay iyaduna u fiican tahay iyaduna waxay kamid tahay soomka sunnada waxa kamid ah soomka sunnada ah 9 maalmood oo bisha dilxijja bisha xajka maalmaha
tobanka maalmood u horeysa sagaalka maalmood u horeysa inuu qofkii soomo dabcan maalinta ciida iyada lama soomi karo laakiin sagaalka maalmood oo ay ka mid tahay yawm carafa ay ka mid tahay inuu qofku soomo laakiin qofka xaajiga ahi asagu maalinta carafa ma soomayo waxa ka mid ah soomka sunnada ah bisha shacbaan oo la soomo iyaduna waa ka mid qofkii soomi kara nabiga kaleey salaatu wasalaam bisha shacbaan uu soomi jiray markii la weydiiyana wuxuu yiri waa bil dadku ay moog yihiin oo halmaamaan oo u dhaxaysa bishii rajab oo ka mid ah bilihii ashhurul xurumka iyo bishii ramadaan bay u dhaxaysaa markuu saasa dadku lagu halmaama sidaas uu nabiga kaleey salaatu soomi jiray waana bil ayadana sidoo kale acmaasha la bandhigo ilaahay loo bandhigo weey nooca saddexaad soomka kamid ah waxa weeye waa soomka manhiga ah waa soomka la nahiyay isaguna waa anwaac waxa kamid ah soomka la nahiyay oo la diiday maalinta ciida in la soomo ama ciidul fitriga ha noqoto ama ciidul adha ha noqoto waana xaraam in la soomo mana ansaxay soomkaasi ama sunna ha noqdo ama farad ha noqdo hatta qada soom qada oo qofku qaleynayo ma soomi karo maalmahaas ciid labadaas maalmood oo ciid lama soomi karo waxa kamid ah maalmaha soomkooda iyadana la reebay ayaamu tashriiq waxa weeye maalinta ciidul adha ciida xajka maalinta ciida saddexda maalmood ka dambaysa oo ah 11ka 12ka 13ka bisha dilxij iyaduna sidoo kale waa xaraan in la soomo lama soomi karo nabiga kaleey sallallahu wuxuu yiri ayaamu mina ayaamu aklin wa shurbin wa dhikrillah marka maalmahaas iyaduna sidoo kale lama soomi karo waxa kamid ah soomka la nahiyay in lagu kali yeelo maalinta jumcada ama sabtiga soon lagu kali yeelo illa qofku inuu waafaqo soon uu soomi jiray caado u lahaa مثلا qofka asagu maalin soomi jiray maalin afuri jiray haday ka waafaqdo maalin sabti ama maalin jumca dhibaato male hadii ayaamul biidkii oo kaleeto 13 14 15 ay waafaqdo dhib male laakiin inuu u qasdo yawmul jumca inuu soomku kali yeelo ama yawmul sabti uu soomku kali yeelo waxa kamid tahay soomkan manhiga ay kamid tahay waxa kamid ah soomka la reebay oo nahyi ku soo waxa kamid ah soomul wisaal qofku inuu soomka xariiriyo maantu soomana isagoon afurin ayuu maalinta labaadna ku xariirinaya maalinta saddexaadba ku xariirinaya marka soomka sidaas kale u xariira oo aan afur u dhaxayn isaguna waxa weeye waa xaraan yaani maanta markuu dhameystay maqribku inuu afuray ahayd ma afurayo waxna ma cunayo maalinta labaad buu ku xariirinaya isaguna soomka nahyiga uu kamid yahay waxa kamid ah soomka la nahiyay soomud dahr qofku inuu yiraahdo sanadka dhan baan soo maraanaya ayaduna waa kamid soomka la nahiyay ay kamid tahay waxa kamid ah soomka la nahiyay sawmu yawm shak maalinta shakiga yawm shakiga in la soomo yawm shakigu waa maalinta soddon ay ku aadantaa bisha shacbaan dadkuna ay ku sheekaysteen bishii waa la arkay waa la sheegay qof arkay iyo qof ka marqaati kacay oo lagu kalsoon yahana uusan jirin marka qofku inuu yiraahdo احتياط ahaan iyo dadaal ahaan ba u soomaya oo bishii ramadaan ka dhigaya ba u soomaya maya ma banaana in loo soomo wala nahiyay laakiin qofku hadii uu waafaqo soon u soomi jiray qofkii midalan sidoo saasoo kale ayaa maarta yoom maalin soomi jiray maalin afuri jiray hadii yoom shaki ay ka waafaqdo dhibaato mala iyadu waxa kamid ah soomka manhiga ah oo la reebay waxa kamid ah qofka dumarka oo xaaska ah inay soom sunna ah soonto ayadoo aan fasax ka haysan zawjkeeda nabiga kaleey salaatu wasalaam wuxuu yiri la yahillu limra'atin an tasuma wa zawjuha shahid illa bi idni uma banaana qof dumara yaani xaas baa laga wadaa inay soonto ayadoo zawjkeeda uu joogo illa idan inay ka qaadato maana idankiisa marka waxa laga yaabaa inuu u baahdo laakiin haduusan u baahnayn مثلا ومقيه اما ومحرم وحجب حرميه اما وسوميه اما يعني اعتكاف كجرا دوسن u baahnayn markaas wax dhibaato ma leh laakiin hadii waxa u baahan yahay inay ka idan qaadato way idan weydiisato sidaas ayuu nabiga kaleey salaatu wasalaam oo amray amarka nabiga kaleey salaatu wasalaam in la fartoomo asaga ayaa khayrku ku jira darsigana maantay intaas ayaan كسو كوبينا وصلى الله وسلم على نبينا محمد